muddo ku siman 8 bilood kadib maanta waxaa soo gabagaboway doorashadii madaxtinimada maamulka Galmudug xilli wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya dadaal dheer ay gelisay in Galmudug ay yeelato hoggaan cusub khilaaf isjiid iyo muran fara badan kadib dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta 2 bisha 2020 ku guuleystay soo afjarida doorashadii madaxtinimada maamulka Galmudug oo ay ku loolamayeen musharaxiin gaaraya 9 musharax oo 4 kamid ah u tirtamayeen madaxweyne halka 5 kale ay u tirtamayeen madaxweyne ku xigeen musharaxiinta u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa kala ah Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Cabdiraxmaan Axmed Sabriye Axmed Shire Maxamed Falagle iyo sidoo kale Axmed Cabdullaahi Samatar madaxweyne ku xigeenka musharaxiinta u taagnaa ayaa ay kala hayeen Cali Daahir Ciid أحمد يوسف ورسمة تاجر صادق عبد الله حاشي محمد حاشي عبد عربي iyo Cabdiqani Sheekh Ali Diini doorashada madaxweynaha ayaa waxa ugu dambeyntii guul ka gaaray Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweyne ku xigeenka doorashadiisa ayaa la guda galay kadib markii guddigu uu ku dhawaaqay hoggaanka sare ee Galmudug inuu ku guuleystay Axmed Cabdi Kaariye waxaana tartan xoogan uu dhex maray musharaxiinta u tirtamayay hoggaanka madaxweyne ku xigeenka 5 tirtamaysay ayaa waxa isku soo haray wareegi labaad 4 musharax iyadoo 2 kamid ah ay tanaasuleen waxaan ugu dambeyntii natiijadu ay ku dhamaatay in uu ku soo baxo doorashada madaxweyne ku xigeenka Cali Daahir Ciid gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa halkaasi khudbada ka jeeday uga hadlayay doorashooyinkii hoggaanka ee ka qabsoomay magaalada Dhuusmareeb waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha waxaan leenahay hambalyo xilka soo socday 7 bilood daadiyihiisii iyo heshiisiinta dowladda madaxweynaha la doortay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sheegay in siyaasadiisa koowaad labaad saddexaad ay noqonayso heshiiska gaaridda khilaafyada ka dhashay doorashooyinkii ka dhacay deegaanada maamulka Galmudug oo Galmudug kamid ah waxaan ugu tagi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta oo ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo Galmudug dhexdeeda ka jirta dhammaan reer Galmudug waxaan ugu baaqayaa wixii tabasho ah ee dhexdeena ka jira wada hadal inaan ku dhamaysano sidii ay qabta shariicada islaamku dhaqanka wanaagsanna uu qabo reer Galmudug dantooda ku jirto waxaan ka shaqayn doonaa Galmudug karti u leh inay u adeegto bulshada reer Galmudug xiriir dhowna la leh dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan amniyad gaar ah dowladdeedu sii doontaa sugidda amniga iyo gudashada dhammaan waajibaadyadii na hor yaallay iyo kuwii aan ku sheegnay oo aan ku soo sheegay barnaamijkayga siyaasadeed horay u soo bandhigay waxaan u daysan doonaa khudbada inta ka dheer intaas maalinteeda iyo waqtigeeda ku habboon waxaan mar labaad leeyahay reer Galmudug meelay joogaanba walaalayaal iscafiya nacafiya aan isu nimaadno aan tashanno aan dhamaysano wixii dhexdeena ka jira aan guul gaarno insha Allah wabillahi tawfiiq dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha iyo dib-u-heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa hadlay waxa uu na sheegay in Galmudug doorashada ay muddada dheer soo jiitamaysay soo gabagabowday waxaan leeyahay 7 bilood iyo waqti la jira natiijadii kama dambaysta ahayd ay maanta halkan lagu gaaray inta guuleysata hambalyo inta laga guuleystay oo sida sharafta leh halkan u soo istaagtay oo hambalyeysana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyagana waa u hambalyeynayna
waxaan leeyahay ummadda reer galmudug maanta masiirkiinnu gacantiinnu ku jiraa maamulkii horoo la sameeyey waa naga xoogaa cuslaaday waad aragteen wixii khilaaf iyo kala taagnaan aan ku gooyn karno inaysan meelna la geynayn waa aragteen markaan aan beddelno dabciga aan kula dhaqanno dowladnimada iyo wax wada yeelashada